السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقة تضبط هي برنامج كيها يفسر رياضينا رياضة المنطقة لينو وهو رياضة لمنتي قيمتي دي دبات أفكادو أركو هو يدي أو دمتي هدو ريوكو أركو تاسي مفسر كوين ابن سيرين وحولي هاي أفكا هو يدي سوحي وباهنتاي إن عبسي مركا لغا آمين يلو إسلا مركا نلدر يلو الله يلاليو sidoo kale hooyada dhimatay hadduu qofka ku riyoodo taasi waxay tusinaysaa hooyadii inay u baahan tahay duco iyo camal wanaagsan in loo sameeyo qofkii arka hooyadii oo markaa hadlaysa isla markaana riyada dhexdeeda markaa wax ugu sheegaysa ibn sirin wuxuu leeyahay taasi waxay muujinaysaa in hooyadii markaa war xaqa ay markaa sheegi doonto sidoo kale haddii qofka hooyadii oo dhimatay oo xanaaqsan uu riyo ku arko taasi waxay tilmaamaysaa in hooyada xusuusteeda iyo markaa xuskeeda la yareeyey ama in baari loo noqdo oo wax wanaagsan oo iyada anfacaya loo sameeyo kale ama waxyaabihii wanaagsanaa ee ku tarbiyaysay carruurteeda inay ka tageen taasina ama in wax loo sadaqeeyo markaa qofka hooyadii ku riyooday uu ilaabay sidoo kale hooyadii dhimatay qofka isagoo u ducaynaysa hadduu arko ayadoo ku ducaynaysa haddii aad aragto ibn sirin wuxuu leeyahay taasi waxay tusinaysaa in markaasi xaalkaaga isla markaa nolosha markaa insha allah hagaagi doonto xaaladaada nolosha ayaa hagaagi doonta biidnillaahi baari sidoo kale qofka hooyadii oo dhimatay ku riyooda iyadoo markaa ciyaaraysa taasi waxay tusinaysaa qofkaasi inuu adduunyo ku mashquulay uu adduunyo macansan iyo aakhirana ilaabay qofkii markaa hooyadii oo dhimatay oo la guursanaya ku riyooda taasi waxay tusinaysaa qofkaasi in markaasi khayr badan uu ku guulaysan doono iyo barako badan arsaaqadna ilaahay uu siin doono sidoo kale waxay muujinaysaa qofkii markaas sidoo kale ku riyooda hooyadii oo dhimatay oo uur leh taasi waxay tusinaysaa qofkaasi inuu hanuuni doono hanuun u heli doono isla markaana xaaladiisa micnaha xaalkiisa diinta markaa uu hagaagi doono micnaha isaga xaalad diintiisa ay markaa hagaagi doonto weeyaan qofkii markaa ku riyooda hooyadii oo dhimatay oo dhalaysa taasi waxay muujinaysaa ama ay tusinaysaa qofkaasi inuu dhibaatooyinka iyo imtixaanka haysto dhan markaa uu ka bixi doono insha allah qofkii arka aabihii oo dhintay oo hooyadii dhimatay markaa la jimaacaya qofkaasi riyada waxay tusinaysaa insha allah qofkaasi inuu wax u dhalan doonaan isla markaana ilaahay subxaana watacaala arsaaqad siin doono shaqana ilaahay subxaana watacaala fiican siin doono isla markaana qofkii ku riyooda hooyadii oo dhimatay oo dagaalaysa oo ama aabihii la dagaalamaysa taasi waxay muujinaysaa riyadaasi in qofkaasi markaa dood iyo markaa khilaaf uu markaa kala kulmi doono xubno kamida qoyskiisa marka intaa ayaa barnaamijka kusoo asmeeraya barakallahu fiikum sheer gareeya la wadaaga asxaabtiina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh